waxaa gebi ahaanba albaabada la iskugu laabay suuqa ganacsiga ee xaafadda Islii magaalada Nairobi ee caasimadda dalkani Kenya. Ganacsatada suuqa ayaa siyaabo kala duwan uga hadleen xiritaanka goobihii ay ku ganacsan jireen. Ayagoo la hadlay TV-ga CNN ayay qaarna soo dhaweeyeen halka kuwa kalena ay ka deeriyeen xirnaanshaha suuqan, waxaana hadaladoodu ka mid ahaa annagoo awaamirtii madaxweynaha iyo wasaaradda caafimaadka filinayna taasoo la yiri ha lagu camal falo muxuu ahaayay halka afka lagu xirto iyo maxay ahaydey inaan maaragtay dad badan ay isu imaanin in maaragtay dukaamo kale hor dhigo bahalkan biyaha iyo maxaa la dhahay oomada intaasoo dhan iyo dukaamo kale nin walbana inuu dhigto dukaankiisa afkana u xirnaato. awaamirtii wasaaradda caafimaadka annagoo filinayna ayaan maanta waxaan guubaabinaynaa dadweynaha marka dadka suuqyada oo gaarisa ka community iyo Kamukunji constituency oo dhan ilaa Kikomba laga gaaro ilaa Kamukunji market laga gaaro waxaan rabaa inaan dhaho waa inaan qaadanaa amarka dawladda. hadda 9 street marka taa ugu shameel waxay jirtaa daacun ka dilaacay maalin kasta lacag baa la qaadaa wasaqda si u taalla waa aragtaa dadkii masaakiinta beecsharada laga xiray ma maqlaysaa marka waxa weeye arrintan waxaan u arkaa aniga arrin ah yaani arrin dhiil lagu qaadanayo u arkaa dhiil lagu qaadanayo moogi arrin shaqo lagu qabanayo hadii wax la qabanayo kala markii la leeyahay cudurkan corona muxuu ka bilowday ma fadaro sameyn naan istirasa u qardaacun baa ka dilaacay horta waxay ahayd hawshan maadaama la sameeyo horta waa la sameeyaa laakiin waxay ahayd in laga fikiro dadka aan la fiirin dadka jeebka weyn maadaama amarka iyo go'aanka ay lahaayeen waxay ahayd in loo fiiriyo dadka masaakiinta jab yarta. Nairobi waxaa joogo dad maanta aan heli karin 100 shilin ee ku qadiyaan haday haysan aan casho haysan haday quraac haystaan qadada ku agtay meeshan waa ogtii Nairobi saa ku noolnahay nolosha waa inkastoo ay xaalku adkaa haddana corona waa uga sii daray marka waxay ahayd ani ahaantayda business community-ga maadaama nin rag jeebkooda nool yahay ahaayeen inay fiirshaan dadka ku hoos nool oo aan amarka shala galaba la waxay oo la sheegay lana shaaciyay mana ahayn in isla maanta la dhaqan geliyo waxay ugu yaraan in 3 maalmood la siiyo dadka la yaraa soo adeegto wax walba suuqa idinka xiran hadda waxa laga yaabaa barnaamijyo badan oo inay xayirmeen. dhanka kale xildhibaanka degmada Kamukunji oo xaafadda Islii hoos timaada mudane Yuusuf Xasan oo qoraal ku soo qoray barta uu ku leeyahay Facebook ayaa soo dhaweeyay tilaabada ay qaadeen ganacsatada xaafadda Islii.